أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى ayaanu mahad celinaynaa. waxaynu bilaabayno waa gabaygii ahaa bayquuniyada ee cilmiga loo yaqaano fi musطalax alxadiid ama culuum alxadiid, kaasoo ah cilmi lagu kala ogaado sixada xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam, hadduu saxiix yahay, hadduu daciif yahay, iyo hadduu intaa kasii liitaba. waxaadna ogaataa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam awalan waa waxyi min allahi tabaaraka wa tacaala, sida qur-aankaba u yahay waxyi min allahi tabaaraka wa tacaala, ayay sunnada nebiguna waxay tahay waxyi min allahi caza wajal. adilada qur-aanka iyo sunnada ayaana tilmaamaysa inay tahay waxyi sunnadu, oo alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam isagama hadlayo hawadiisa ee wuxuu ku hadlayo waa waxyi min allahi caza wajal. ta labaad, alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu. wuxuu rasuulka muxameda idinla yimid qaata, wuxuu idinka reebayna ka hara. amar weeyaan ta labaad. halkaasina nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noola yimid oo sunnada inaan qaadanno, oo kitaabka allah subxaanahu wa tacaala inaan qaadanno. wuxuu naga reebay bilkitaabi wasunna, nooga reebay inaanu ka fogaano, salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. axaadiidta tilmaamaysana aad bay u badan yihiin xagga nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka sugan, sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidu jibriil, fa ina jibriila akhbaranii aanifa. ninkii u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ku yiri rasuulka allow, haddii aan dagaal aado fii sabiili illah, muxtasib anigoo ah, muqbil ah oo hayra mudbir ah, sidaa darteedana aan ku dhinto, jannada ilaahay ma gelaya? nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam nacam. ninkii isaga ah markuu dhabar jeediyey ayaa nebiga u yeero wuxuu ku yihi warkaalay iigu celi, maxaa tiri? warkii markuu ugu celiyey nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam nacam, jannada ilaahay waa gelaysaa ila dayn, in dayn lagugu leeyahay mooye. markaasuu nebiga u raaciyo wuxuu yihi faina jibriila akhbaranii aanifan. hadda waxaa ii waramay warkaasi jibriil, oo macnaheedu ay tahay sunnada nebiga calayhi salatu wasalaam waxaa la soo degayey jibriil oo u waramayey, sida qur-aankaba nebiga calayhi salatu wasalaam loogu waramayey. sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid kale ayuu wuxuu ku oranayey ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci. jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii waramay, oo xadiidka isaga waxaa ku cad in jibriil u waramay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. sidaa darteeda sunnadu marka waa sida qur-aankii oo kale, waa waxyi min allahi caza wajal. iyada oo la diidana ciqaab min allahi weeyaan baa ka dhalanaysa. sunnada oo la diido ciqaab min allahi baa ka dhalanaysa subxaanahu wa tacaala. sidaa darteeda alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim. oo imaamu axmed uu oranaya, ma garanaysaa fitnada waxa loola jeedo waa inuu qofku shirki ku dhaco, aw amase yusiibahum cadaabun aliimun aakhirada dambe. falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih, amarkii nabiga weeye salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. alle isagoo ka waramayaa wuxuu oranayay wain tutiicuuhu tahtaduu,
haddaad nebiga ateecdaan waad hanuunaysaan oo macnuhu waxa weeyaan haddaadan nebiga ateecin ma hanuunaysid cinda allahi tabaaraka wa tacala adiga hidaayo waa kala fogtihiin allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waman yutic arasuula faqad ataaca allah طaacadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu xiray طaacadii alle subxaana wa tacaala way isku xiran yihiin atiicu llaha wa atiicu rasuula oo kale weeyaan sida aayad kale ku timid man yutic arasuula faqad ataaca allah طaacada nebiguna waa maxay warkiisii oo la qaato salawaatu اllah wasalaamu caleyh sunadiisii oo la qaato salawaatu اllah wasalaamu caleyh taasaa loola jeedaa sidaa darteeda xadiid fii sunan ibni maajah ku sugan khatiib albaqdaadina uu warinayay sanadkiisuna xasan yahay rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu ku oranayay salawaatu اllah wasalaamu caleyh waxaa dhacaysa in qofkiin isagoo iska dangiiga gogashiisii ku fadhiya loo keeno xadiid min axaadiidi rasuuli اllahi salى اllahu alay wasalam fayaqulu baynii wa baynakum aw baynana wa baynakum kitaab allah ma wajadna fiihi min xalaalin istaxlalnaah wma wajadna fiihi min xaraamin xaramnaah warhoy aniga idinka waxaa noo dhexeeya waa kitaabka alleh wixii xalaal aan ka helna waa qaadanayna wixii xaraam aragnana waa ka tegaynaa bes markaasaa nebigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam alaa wainii uutiitu اlqur'aana wamilahu macah war hooyay aniga waxa la isiiyey qur'aankii iyo wamilahu macahu uu la socdo milahu macah waa maxay waa sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam lidalika ya imaamu qataada bna dacaam asadusi raxmat اllahi tacaala calayhi wahuwa min ataabiciin min aimati الtaabiciin ayaa oranaya imaamu shaaficina waa laga wariyaa fi kitaabihi الrisaala iyo keyrkeedaba meelo kale buu ku oranayay kitaab alcilmina sidaasi la eg wuxuu markay fasirayaan biqowlihi tabaaraka wa tacaala yucalimuhum اlkitaaba wاlxikmata wayuzakiihim yucalimuhum اlkitaaba waa garanay alxikma maxaa loola jeeda ay sunna sunada nebiga wey salawaatu اllah wasalaamu caleyh sidaa darteeda haddaba sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam heerkaasay taagan tahay iyadii baa taqsiim leh oo qeyb baa waajib noqonaysa oo haddaan nebiga la ateecin salawaatu اllah wasalaamu caleyh kufriya gaalnimay noqonaysaa haddaan laga qaadaninba qofka diida ee yidhaahda sunada nebiga dhammaanteeda ma rabo kufri weeyaan waa qolooyinka qur'aaniyiinta loo yaqaano ee odhanaya qur'aankaanu kaga kaaftoomaynaa sunnada waxaan la leeyahay waa saxiixi waa daciif naga dhaafa iyadoo dhanba oo maxaa yeelaysaa keliya qur'aanka la hubaayo qur'aanka aynu ku kaaftoonno kufri iyo gaalnimay ku dhaceen maxaa yeelay ma garanayaan ilaahay subxaanah wa tacaala waa siduu odhanayay cimraan ibni xusein ninkii ku yidhi qur'aanka nooga sheeke ayuu aada intuu ugu xanaaqo wuxuu ku yidhi qur'aanka ma waxaad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku faray salaad intaad tukanaysid qur'aankuma cadda 5 salaadood inaad tukanayso oo duhurkii 4 yahay oo casarkii 4 yahay oo maqribkii 3 yahay oo tartiibta haddana loo tukanayo talala jahrayo tala siraysanayo inta tashahud ee ku jira waxaasoo idil qur'aanka noogama waramin ee alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina asalaata kanat cala almu'miniina kitaaba mawquuta aqiimu الsalaa zakadii sidaasi la eg weeyaano xoolihii maxaa laga zakaynaya maxaanse laga zakaynaynin geela maxaa laga bixinayaa oo lo-da maxaa laga bixinayaa oo ariga maxaa laga bixinayaa oo tiro intee la eg baa laga bixinaya haddana xadka ugu yar waa intee ay ku waajibayso goorma ayay waajib noqonaysaa zakadii ma markaa qofka uu xoolaha helo mise markay sanad ka soo wareegato wuxuu idil yaa noo tafsiiriyey nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waana tan alle subxaana wa tacaala uu soo diray rasuulkiisa oo ah litubayana linnaasi maa nuzila ilayhim inuu dadka u faahfaahiyo o u caddeeyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu kusoo dejiyey ijmaalka ahaa ee qur'aanka ahaa inuu nebigu tafsiiriyo salawaatu اllah wasalaamu caleyh markaas sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam sidaasay ahayd marxalado ayay soo martay dhowr ah mid annagoo iska soo gaabsanayno marxaladaha dhowrka waxay ahayd awalan marxalad dadku ay cusub yihiin islaamku cusub yahay diintu ay ku cusub tahay xaaladda ayadaa qur'aanku uu cusbaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam khawfan min aliltibaas in wax isdhex galaan darteeda waa diiday inaan waxaan qur'aanka ahayn laga qoro oo wuxuu odhanaya laa taktubu canii gayra alqur'aan waxaan qur'aan ahayn hayga qorina qofkii qorow iska baabi'i waxaan qur'aan ahayn ha qorin xaaladdaasi waxaa la yidhahdaa waa xaaladdii dadku ay cusbaayeen diintu ay ku cusbayd qur'aanku cusbaa
xaalad danba iman doonto oo ah waqti dambo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu amar ku bixiyey marar qaarkood in la qoro xajul wadaac oo kale ninkii isaga nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu khudbeeyey in xajul wadaac khudbad dheer buu akhriyey ayaa nin wuxuu yidhi rasuulka allow fahma daraa iska jirtay aniga hala ii qoro waxaa sheegtay markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uktubu liabi shah cabdullaahi bna camr bna caas sidaasi leeg isagu waa qori jiray xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxaa tilmaamaya abu hurayra radi allahu tacaala canhu o ardaa markii la weydiiye lagu yihi ma garanaysaa qof kaaga xifdi badan xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu oranayay maya ilaa inuu yahay cabdullahi bni camr bna caas mooye fainahu kana yaktub walaa aktub maxaa yeele cabdullahi bni camr bna caas waa qori jiray aniguse ma qori jirin waaga dambe waa la qoray qaybo ka mida saxaabada ridwaan ullahi tacaala calayhim ajmaciin rasaa'il bay lahaayeen iyo kutub ay ku qoreen axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxaa la tilmaamaa abubakr sidiiq oo kale iyo saxaabada qaybo ka mida inay qorteen xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka nebiga calayhi salatu wasalaam tadwiinkiisu ma bilaabanin waayada dambe ee wuxuu bilowday waagii nebiga uu noolaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marba haddii ay sugnaatay cabdullahi bni camr bna caas inuu qori jiray oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam uktubu liabi shaah oo abubakr sidiiq iyo keyrkoodana laga warinayo oo la tilmaamayo in ay xun ka sugnaadeen inay qoreen walow asaaniidoodaba waxay ku jiraane taa waxay tilmaamaysaa fi zamani nabiyi sala اllah alay slam inuu bilowday tadwiina xadiida rasuuli llahi sala اllahu alay wasalam laakiin waaga uu intishaarka sameeyey waa waagii taabiciinta weeyaan taabiciinta waageedii weeyaan uma alle subxaanahu wa tacaala sidaynu ognahay diintiisii inuu ilaaliyey oo xifdiyey ayuu inoo ballan qaaday fi lkitaabi alle wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala ina naxnu nazalna dikra waina lahu laxaafiظuun ina naxnu nazalna dikra waina lahu laxaafiظuun culimaduna waxay leeyihiin dikriga rabbi sheegayo subxaanaه wa tacaala waa طarafay alwaxyi oo ah qur'aanki iyo sunadii labadiiba ilaahay waa ilaaliyey subxaanaه wa tacaala qur'aanki iyo sunada labadiiba ilaahay waa ilaaliyey lagamana yaabo labadoodaba in been loola yimaado ilahay waa ilaaliyey subxaanaه wa tacaala qur'aankana fi suduuri اlmu'miniin baa ilaahay ku ilaaliyey saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin xadiidka nebigana fi suduuri الصaxaaba ayaa ilaahay ku ilaaliyey subxaanaه wa tacaala ilaa ay noo soo naqliyeen wax walba oo nebiga ka sugnaaday salawaatu اllahi wasalaamu caleyh xayaatadiisii oo idil wixii looga baahnaa waa noo soo naqliyeen xifdi bay ahayd waa soo xifdiyeen xifdiga isagaa waxay u soo gudbiyeen taabiciintii maxaa yeele nebiga wuxuu oranayay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh alaa falyubaliq الshaahidu minkum algaa'ib xadiidkii mutawaatirka ahaa wuxuu oranayay warhoy kiina jooga maanta ka iman doona ha gaarsiiyo oo ah dadkii taabiciinta ahaa lidalika abi saciid alkhudri iyo keyrkiisa waxay oran jireen annagu waxaanu ahayn goobjoog idinkuna waxaad ahaydeen haa'ibiin maanta annagaa marka idin soo gaarsiinayna riwaayadaha qaarkood abi saciid alkhudri wuxuu oran jiray marxaban biwasiyati rasuuli illaah markuu taabiciinta la kulmo soo dhowaada wasiyadii iyo dardaarankii rasuulka alleh dadku uu noo dardaarmay weeyaan idan taabiciintii baa sidaa ku soo xambaaray taabiciinta wixii ka dambeeyey oo ahaa sikaara taabiciin iyo zamankoodii waa zamanka ay bilaabanaysa tadwiinka sunnada nebiga calayh isalaatu wassalaam saxaabaduna ay sii dhammaanayaan rag yar baa ka noolaa anas bnu maalik uu ka mid yahay iyo keyrkooda markaasaa waxaa bilowday in la qoro sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam sida ibnu shahaab azuhri ninkii la oran jiray iyo ragga la midka ah inay qoraan ibn abi jurayj ninkii la oran jiray cabdilcaziiz ibn cabdilmelik ibnu jurayj ninkii la oran jiray iyo keyrkooda in ay qoraan baa bilaabatay uma bacda dalik intishaar ayuu sameeyey maxaa yeele waa zamankii cumar bn cabdilcaziiz ayuu amar ku bixiyey in la qoro nin walba oo amiir ahaa ayuu amar siiyey culamada zamankiisii nooleyd ee magaalooyinkiisa joogtay in ay waxay ka xifdiyeen nebiga calayh salatu wasalaam xaggiisa la qoro amar ayuu ku bixiyey raxmat ullahi tacaala calayhi waradia allahu tacaala canh maxaa yeeley wuxuu yihi waxaan arkaa dadku culamada ahaa iyo dadkii aimada ahaa oo dhan inay sii dhammaanayaan cilmigan isagana inta la xifdin karaya waa yaryahay taabiciintii hore weliba waa diidi jireen in la qoro oo waxay ohan jireen annagu waanu xifdina idina xifdiya ilaahay subxaana wa tacaala laabtoodu ku xifdiyey imaamu caamir bni sharaxiil oo kale shacbi raxmat ullahi tacaala caleyh 500 oo saxaabada ka mid uu la kulmay cabdullahi bni cumar baa ka mid ahaa raggii uu la kulmay cabdullahi bni cumar baa maalin soo dul istaagay baa la yidhaahdaa tarjamadiisa marka laga waramayo isaga oo
ka warramaya maqaasidii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu odhanayay in kuntu la axdartuha waxaa dhacaysa in aan anigu goobjoog u ahaa meesha laakiin ninkanuu iiga fahmo badan yahay ninkanuu iiga fahmo badan yahay maxaa yeelay intaasoo saxaabi abuu ka maqlay wararkoodii iyagiibu markaa wixii ay yihaahdeen soo tabinaya wuxuu odhanaya shacbi raxmat ullahi tacaala caleyh camr bni sharaaxiil maa katabtu sawdaa calaa baydaa qad iyo qalin intaan qaatay iyo warqad weligay wax ma qorin buu yihi waxba kuma qorin war la ii sheegayna weligay iigu celi ma dhihin war la ii sheegayna weligay iigu celi ma dhihin buu yihi macnaa dadkaasaa ilaahay ku ilaaliyey quluubtooda subxaanah wa tacaala qataada bna dacaama asaduusi oo raggii ardaydiisa ahaa ah ayaa wuxuu u tegey saciid bn musayib oo raggii odayaasha taabiciinta ah markaasuu wuxuu odhanayey waa indhala yahayna xadiid buu u sheegay oo labuu u sheegay oo saddex buu u sheegay oo wuxuu arkay ninkan isagaa wuxuu u sheegaba wax ka fakanaya inaynan jirin sideedii buu ugu celiyaa markaasuu odhanayay weligay wax kula mida maanan arkin wahaakada dadkaasaa ilaahay ku ilaaliye subxaanaه wa tacaala iyaguna jiilashii ka dambeeyey usoo gudbiyeen imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh marka uu ka waramayey kitaabkiisa miisaan اlictidaal fii naqd الrijaal ayaa wuxuu odhanayey zamankii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisii ay noolaayeen saxaabada zamankii ay noolaayeen wax been la yiraahdo in lagu been abuurtay xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ma dhacaynin qofka kale muru'adiisa u diidaysay beenta kufaaru quraysh inay been sheegaan ma jeclayn maxaa yeelay muru'adooda iyo sharaftooda way iskala weynaayeen waxa beenta la yihahdo kufaaru quraysh been maynan sheegi jirin mararka qaarkood maxaa yeelay maca kufrihim waxay iskala weynaayeen in beenta lagu qabto oo waxa kuugu daliil ah xadiidka fi saxiixi اlbukhaari can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ayaa wuxuu odhanayey qisadii abi sufyaan markuu ka waramayey hiraqle markay u tageen hiraqle uu ku yiri yaa u xige dad ninkan baa lagu yihi abi sufyaan wuxuu yihi war adiga kaalay waxaa la istaajiyey buu yihi hiraqle iyo qoladii quraysheedoo dhabarkayga a dhexdooda markaasuu marba su-aal weydiinayey ilaa uu yihi su-aal buu soo maray aan awoodi karayo markaasi inaan wax been aggeliyo laakiin uu ka cabsaday damiirkooda u diidayey lidaalika ayay waxay ahaayeen dad iyadoo sidaas ay tahay haddana islaamku uu u kordhiyey wanaag kale islaamku uu kordhiyey cizi iyo sharaf hadday ahaayeen dad amaanada ilaaliya amaanadii inay sii xifdiyaan uu kordhiyey xadiidkii xudayfa bn alyamaan radi allahu tacala canhu arda amaanada markuu ka waramayay ilaa gayri dalik mar hadday sidaasi dhacday haddaba zamankii taabiciinta ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin sidaasoo kale ay ahaayeen rag xufaad ah waxyiga labadiisa darafba xifdiya laakiin sikaara taabiciin markii la marayo baa waxa soo baxday wahmi in la iska wahmiyo mala qofkii umuurihi ay iska dhex galaan xogaa xifdiga oo liita waxaasina wax kalama ahe macaasidaa badatay waxyiga waktigii uu cusbaabaa laga sii fogaaday waktigii uu cusbaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa laga sii fogaaday waxaa imanaysa marka xoogaa wahni ah iyo daciifnimo waa laga sii gudbay waxaa ku xigay in ay yimaadaan qolooyin markaa kadib si toosa ugu been abuurtay nebiga calayhi salaatu wasalaam imaa iyaga oo dana maslaxada ilaashanaya iyagoo ay leeyihiin dhaqaaliyo wixii la mid ah ama madhabkoodi iyo wixii la mida ugu nusraynaya sida rawaafidda qolooyinka loo yaqaanay shiicada ah ama wax allaaliyo wixii markaasi iyagu u maleeyaan u samaynaya madhabkoodii hadday yihiin madaahibtan ahlu sunna waljamaaca ama iyagu doonaya tarkiib iyo tarhiib iyo wixii lamida inay u sameeyaan sida qolooyin badan ka dhacday wagayri dalik culimada islaamku haddaba waxay bilaabeen inay ilaaliyaan xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam inana alculamaa warahatu alambiya weeyaane booska ambiyaday taagan yihiin waxyiga inay xifdiyaan baa la rabaa allahna uu leeyahay subxaana wa tacaala inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa waxay dejiyeen qawaacid
علمدي قواعد داسي كسوقاتي من الكتاب والسنة أصلك عيل الله وحوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق محياهيد بنبأ فتبينوا أنك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قفك إنه لي ماذا وأسكسوا قننا محاد هيد ياد كورين إيسا حاجاتك كنتي شخاقوا وأيو ما اللي يقانا يا يقانا إمس قف بأرضي دي ساعة انت يا شيخ بولي يا هي والله باريا والله باريا إلى قاركود أي راهدين سيد إمام الشعب رحمة الله تعالى عليه قفك أن حديث كورين هي انت صقور أيان لا فرديستي أن دوري حالدي سوحيته قف على إن لقى قاتي استهلمية سيدي سبب إلالين وإلالين هي حديث النبي صلوات الله والسلام عليه إذن هذا علماء قواعد بيديجيان قواعد أيضا وحي إسكاهيد قواعد شفوية لكن ديوان قلنت هذا وحوقوه الرئي إمام الرامة هرمزي نيكي لورنجر رحمة الله تعالى عليه ثم بعد ذلك تتابع العلماء أصوشي سنة واحد دجيي والديوان كيسا سفي عنه نظيفية وحوها خطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه أحمد بن علي بن ثابت خطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه ثم بعد ذلك علماء الإسلام كتبتي ساسا لو اعتكافي إلى زمن كي سيدتك النولاء يراهدين الناس عيال على كتب خطيب البغدادي كتاب كيسا الكفاية في علوم الرواية وكلائيه ما من فن كم إذا فنون مصطلح الحديث إلا باب إسقى كتابه كله وإنه أركض دونا مدول بو كم إذا خطيب البغدادي وحو كله هاي مركي ويرتهاي كتبه كدجيا ما كتابه كله ثم بعد ذلك كتبتيسي مع الأسانيد لا دير بين لا هاي قصة والبمركو صون نقلنا مع السنة كذي وصون نقلنا يا لبس سنة سدح سنة وحي لا هي وحاصل إدل بوصون نقلنا يا مر والبنا السند والبيا سنة كذا بيا همد ويسي ضعيف يسا حفظك وسي رانيا وحي جعل يستين إن لصو قابيو وحاصل إدل أرضي دي وحي جعل يستين إن لصو قابيو إمام ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله تعالى عليه أيوح قال لي في كتاب كيس مقدمة علم الحديث أو مصطلح الحديث كواحد لو يقانه أما مختصر واحد لو يقانه ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح معروف كقوة أيو ألفي يذا مركا وحي النقطي تكلية يدتك أي مركا بعد ذلك يسود ديبان أو انتشار سميسة قف قابية قف يدي كسمية اختصار أما قف شرحة أما قف نكتة كدرة نكتي وحي الله بذا وحي الشيخ كتجي رحمة الله تعالى عليه قف أسمية شعر ويوض الشعر أبدلي وحي الله ميتا وهكذا كتاب كان مركا أنه هيسنه وأصل كلية هي ومقدمة ابن صلاح أما مقدمة علوم الحديث وحلو يقانه هل كاسو كسو جيدا وأنا صدني أفر بيد وحبذا معها إن لحفظيانا أي وناكسنتها يقفك iyadoo haddii aad raadisataanna waxaa laga yaabaa internetyada meelahaas inaad ka heshaan iyadoo oo gabay ah oo la akhrinayo haddaad adigu aadna fahantaada akhrisatid oo aad ku celcelisid 34 bayd weeyaan aad bay u sahlanta waa wax macaan weeyaan aad u fudud in sha Allah dhowr mar haddaad ku celcelisid way sahlan tahay waad xifdin karaysaa marka waxaan jeclaan lahaa dadku inay xifdiyaan biidin Ilaahi tabaaraka wa ta'ala أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي 2 أو 3 مشهور مروي فوق ما 3 معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه 2 وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده جزاك الله خير أبدأ وأنكب بالله بسم الله الرحمن الرحيم sababta loo soo qaatay ay tahay 3 calaamo midood ima ta'assi bi kitaab Ilaahi tabaaraka wa ta'ala ku dayasho sheekhu ku dayanay kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala ama maba waxa la yiraahdaa waxa weeyaan anbiyada Allah iyo rususha Allah nafahanteeda caado wahaydo markay kitaab qorayaan bismillaah inay ka bilaabaan oo waxa inoogu daliila 2 qisaba filka quraan al-kariimna waa cadeynaya qisadii nabiyullaahi Sulaymaan warqadii uhudhud u dhiibay muxuu yiri innahu bismillaahir rahmaanir rahiim talabaad waxa cadeynaya nabiga kaleey salaatu wasalaam rasaa'ilkiisa wuxuu ku bilaabi jiray bismillaah iyaduna xadiiska fi sahih al-bukhari ali ibn abi talib iyo qeyrkiisa wad garanaysaan ama maba arinta saddexaad waxa dhici karaysa xadiiskii kale ee laga warinaya nabiga kaleey salaatu wasalaam كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله بحمد الله بذكر الله طرق للدوام بكسو عرورا لكن كل وضعيف ويان سيد الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه كتاب إرواء الغليل وكو كينيو حديث كوات وكو ضعيفين يهلكا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فهو أخطع فهو أجذم إلى غير ذلك أمر والبؤ واللقب اللوضة وحن إلهي ذكر كيساهين أما بيسن كيساهين أما حمد الله أهين أما وحي اللمذة وأبتر ويان وأدبقوا أنيه طيب سدح ذا مذا أهاتب الشيخ رحمة الله تعالى عليه
ama kitaabka alluu ku dayanayaa dheh ama amarka ambiyada alle ay raaci jireen iyo dariiqadoodiibuu raacay dheh ama xadiidkii iyo amarkii nebigu raacay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka aynu tilmaannay waxay ahaataba bismi illaahi araxmaani araxiim wayna fiican tahay qofku inuu isaga bilowdo abda'u bilxamdi musaliyan calaa abda'u waan bilaabayaa bilxamdi mahadcelin aan ilaahay u mahadcelinayo subxaana wa tacaala mahadcelin aan ilaahay u mahadcelinayaan ku bilaabayaa musaliyan anigoo ku salinaya calaa muxamedin ku salinaya muxamed dushiisa muxamedkaasoo khayra nabiyin nebi lasoo diray kii u khayr badan ah khayra nabiyin nebi kii u khayr badan ah ursila lasoo diray wadiitani buu yihi sheekhu min aqsaami alxadiidi xadiidka qaybintiisii weeyaan ciddatun dhowr loo qeybiyey xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex baa loo qeybiyey halkan sidaynu arki doonno asalku laakiin waa laba un inuu yahay mid la aqbalayo iyo inuu yahay wax la radinayo labada un weeyaan in la aqbalo iyo in la radiyo in la aqbalo hadday noqotona labaa loo qeybin doonaa in la radiyo hadday noqotona aad buu u tiro badnaan doonaa in la aqbalo hadday noqoto waa saxiixi iyo xasanka waxaa loo yaqaano in la radiyo hadday noqotona waa noocyadii tirada badnaa ee daciifka labada un weeyaan marka laakiin sheekhu saddex buu u qeybin doonaa saxiixii iyo xasankii iyo daciifkii saddexdaas weeyaan marka wadiitani min aqsaami alxadiidi xadiidka qeybintiisii weeyaan ciddatun dhowr loo qeybiyey wa kullu waaxidin mid walba oo qeybaha ka mid ahna ataa waa yimid waxaddahu xaddigiisii buu la yimid macnaa sharaxiisii buu la yimid waa kuu bidhaamin doonaa waxyar baan kaaga faahfaahin doonaa waa kuu tilmaami doonaa waa kuu bayaanin doonaa buu leeyahay sheekh raxmat ullahi tacaala caleyh awaluhaa qeybaha waxaa ugu horeeya asaxiixu weeyaan xadiidka lagu yihahda xadiidkani waa saxiix xadiidkani waa saxiix saxiixu lbukhaariga iyo saxiixu muslimka iyo waynu naqanaa xadiidkan isagaa waa saxiix haddii lagu yiraahdo kaasaa u sareeya axaadiista xasankaa ku xiga daciifkaa u dambeeya xadiidka saxiixa ah marka 5 shardi buu leeyahay 5 shardi xadiidkii laga helo baa saxiix la dhihi karaa haddii 5taa mid ka mida la waayo ama ay hoos u dhacdo saxiix ma aha darajadaasi hoos buu oga dhici doonaa marka ama xasan buu noqon doonaa ama daciif buu u gudbi doonaa 5ta tirso marka waa xadiidka wahuwa saxiixu matasal waa xadiidka uu xiriirsamo shardiga koowaad waa inuu xiriir yahay xiriir maxaa laga wadaa sheekhaa warinaya waa inuu sheekhiisii ka warinayo waa inuu sheekhiisii kale ka warinayo waa inuu sheekhiisii kale ka warinayo waa inuu saxaabigii ka warinayo waa inuu nebigii ka warinayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waadix weeyaan u malaynaya awaluhaa waxaa ugu horeeya asaxiixu weeyaan wahuwa saxiixuna matasal waa kan uu xiriirsamay isnaaduhu sanadkiisu sanadkiisu xiriir yahay sheekha sheekhiisii 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 saxaabigii taabicigii saxaabigii nebiga calayh isalaatu wassalaam walam yushad shardiga labaad waa ka calaamada labaad ee xadiidka saxiixa lagu yaqaano walam yushad waa inuusan shaad noqonin shaadka maxaa la yiraahdaa way inoo iman doonaa laakiin macnihiisa aan sii hormarinaynaa waxa weeyaan wamaa yukhaalif hiqatun fiihi lmala fashaad buu ku dhihi doonaa wamaa yukhaalif hiqatun fiihi lmala fashaad oo macnuhu ay tahay maalan kaba soo qaad 5 arday ah baa sheekhoodii xadiid ka warinaya 4 ka mida sibay isugu waafaqday mid ka mid ahna sida cagsigeedu yiri 4tani waa rag odayaal ah oo xufaad ah oo aimo ah ninkan qudhadkiisa nin la liidi kara maaha waa nin imaam ah min alaima laakiin 4tani waxaan suurtagal ahayn inay khalad isku waafaqaan ninkan naftirkiisu waa imaam weeyaan sidaa darteeda waxaan leenahay imaam baa tahay min alaimati almuslimiin xadiidkaagu wuxuu khilaafay jamaacadii sidan aad u warinayso waa lagugu khilaafay dadkaa badan baa kugu khilaafay imaamu shaafici wuxuu oranaya raxmat ullahi tacaala caleyh huwa waxa weeyaan qofka hiqada ah wuxuu ku khilaafo dad ka tiro badan sidaa darteeda sanadka waa inay hiqaad yihiin raggu waynu arki doonaa shardi ka mid a shuruudaha sixada weeyaan
وإنه سن كخلافين ركث قيسا وإنه سن مخالفة ماشو دعين ويان وهو ما اتصل ووحي أحرر سمي إسناده سند كيسو ولم يشذ شاذنا أنا النقننو قف كلي جوني وبحي وإنه سنهين أو خلاف الرج كبدنا وإنه من دونتا يضل فافهنا أو يعل أما وإن عل ويسنجلين علذو يضنا والنوع كم إذا أنواع ذا حديث كضعيف كأه وإنه من دونتا يضل فافهنا والله بالنوع باللوقي بيا عل ظاهر وبين وهو واضح جلي يعل خفي وهو قرصون لبدا سي علماء الحديث قيبيان علada ظاهرka ah bayinka ah jeliga qof walba min talabati العلم ama ahlu الحديثka meesh cilmigiisa uu gaaraba waa fahmi karaya laakiin tan ay in yar oo culimada kamid ay fahmi karaan dhamaadayna waa cilada khafiga weeyaan taana markaynu gaarnayno bayaanin doona hadii ilaahay raali ka noqdo culimadu waxay ka yiraahdeen aw yu'al shardiga saddexaad waa inuu san cilla yeelanin shardiga saddexaad waa inuu san cilla yeelanin yarwihi shardiga afraad waak yarwihi waa inuu warinayo cadlun qof caadil daabitun wa xifdiyay waa shardiga afraad weeyaan shardiga shanaad can mithlihi waa inuu ka warinayo mid isaga la mid kaasoo muctamadun lagu kalsoon yahay fii dabtihi wuxuu laabtiisa ku xifdiyey iyo wa naqlihi wuxuu kitaabkiisa ku xifdiyeyba kitaabkiisana waa inuusan khalad lahayn oo kitaabkiisu uu yahay kitaab muwaafaqa likitaabi shaykhi sheekha kitaabkiisana sheekhiisa in la waafajiyey haakada laabtiisana waxa uu ku xifdiyey waa in lagu kalsoon yahay waa la ilaalinaya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam yarwihi waa inuu warinayo cadlun qof caadil waa inuu warinayo maxaa yeele allah subxaana wa tacaala na amray oo waashhiduu dhaway cadlin minkum markhaati geliya kuwa cadaalad u saaxiiba oo idinka ka mid haddii markhaatigii adduunka shay basiit la isku markhaati gelinayay la yiri cadaalad waa inuu ehel u yahay fa kayfa bi hadithi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waa inuu caadil yahay marka qofka ثانيا cadaalada iyada iyo shuruudaheedii cadaaladan caadiga maxay ku kala duwan yihiin way tiro badan tahay culimada islaamku waxay ka yiraahdeen caadil yaa noqonaya waa qofka aan la imanin kabaa'irta qofka aan kabaa'irta la imanin sagaa'irtana ka fogaaday khawaarim almuru'a aan la imanin waxa muru'ada dilaaciya aan la imanin qofkaas caadil ama cadaalada dabdigeeda inkastoo ay tahay meel khilaaf ka taagan yahay cinda alculamaa laakiin ijmaal ahaan intaasay yiraahdaan daabitun can milihi daabit ahoo xifdiyey dabdu sadri iyo dabdu lkitaaba labadaasaa loola jeedaa can milihi mid isaga la mida inuu ka warinayo oo sheekhiisana waa inuu isaga la mid yahay sida isaga qof lagu kalsoon yahay oo caadil u yahay sheekhiisuna waa inuu la mid yahay muctamadun waa in lagu kalsoon yahay fii dabtihi wuxuu laabta ku xifdiyey dabdu sadri weeyaan ونقله وحسو نقليي نقل الكتاب ويان طيب والحسن المعروف صحيح هل كاسي نوغا دمادي شنتا شرطي ويان وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله شنتا شرطي مركا لغا هلو حديث صحيح نقنا يا مركا طيب والحسن المعروف طرقا waxa ku xiga darajada ku xigta saxiixa waa maxay xadiiska xasanka maxaa lagu kala garanayaa wax farqi ama u dhaxeeya xagga amalki maya xagga i'tiqaadka haday ka waramayaan wax farqi miya u dhaxeeya maya waa isku mid weeyaan ee xagga taqsiimtii umba la kala qaybinaya sida imaam muslim rahmatullahi ta'ala alayhi muqaddimadiisa uu ku tilmaamay saxiixiisa inuu kaga warin doono maratib saddex rag ugu horeeyo oo rag aima ajilla kubara asmaadooda qaybo kamid uu tilmaamay thumma ba'da dhalika ragga xiga inuu keeni doono kuwaas weeyaan kuwa loo yaqaan xadiiska xasanka kuwa xadiiskoodu xasan yahay oo macnuhu waa maxay aimada horeynan gaaraynin xaga dabdigii sadriga kuma gaarayaan waa ka hooseeyaan sidaa darteeda halkan loo keenay marka والحسن المعروف طرقا
wagadat rijaaluhu laa kaصaxiixi ishtaharat halkaa qodob buu sheekhu kaga soo gaabsadayba wاlxasanu xadiidka la yiraahdo almacruufu طuruqan waa mid dariiqyadiisa la yaqaano alxasan xadiidka ahi almacruufu طuruqan duruqyadiisa waa la garanaya rag la yaqaano wagadat wayna ahaatay gadad bimacnaa saarat weeyaan rijaaluhu rijaashiisuna way ahaadeen laa kaصaxiixi sida xadiidkii صaxiixa ah kuwa aanan ishtaharat u shuhroobin sida xadiidkii صaxiixa ah umaynan shuhroobine xogaa bay ka hooseeyaan xadiidka صaxiixa raggiisa maxaa la yihi yarwiihi cadlu daabiط can milihi muctamadu fii dabطihi wa naqlih xogaa bay ka hooseeyaan laa kaصaxiix ishtaharat waa macno aad iyo aad u macaan weeyaan marka xadiidka xasankaana waa halkaa weeyaan meeshuu dhacaya wkulu ma can rutbat اlxusni qasr wakulu ma xadiid walba oo can rutbati اlxusni darajada xasanka ah qasr ka gaabta hoos oga dhaca shuruudihiisii laga waayo muxuu noqonayaa fahuwa daciifu markaa waa daciif weeyaan wa huwa daciifkiina aqsaamu kahur aqsaam aada u tiro badan weeyaan xadiidka daciifka ahaana qaybo badan buu leeyahay sheekhu wuxuu yihi wakulu maa can rutbati اlxusni qasur wax allaaliyo wixii darajada xasanka ah hoos oga dhaca marka hoos oga dhaca waxaa loola jeedaa hiqanimadoodii iyo dabdigoodii baa hoos oga dhacay wahmi baa ku soo baxay su-ulxifdi baa ku soo baxay iyo wixii la mid a maaha in kadib iyo wixii la mida uu ku dhaci doono markaasi mawduuc bay noqon doonaan daciifka qaybo ka mid ah weeyaan haddii marka darajadii uu hoos oga dhaco fa huwa daciifu weeyaan daciif weeyaan kaa isaga wa huwa daciifkuna aqsaamun kahur qaybo badan buu leeyahay qaybihiisa xad ma leeyihiin la koobay maya aad bay u badan yihiin ilaa qaybo culimada ka mid ay yihaahdeen 300 oo qaybood baa loo qaybin doonaa laakiin waa iska tikraar weeyaan waxa ay tilmaamayaan waa inoo iman doonaa qaybihiisa wax badan ma aha wax weynna ma aha wax allaale labadaa shardi baa ugu muhiimsan wixii ka hooseeya intaasi waa daciif daciifkuna laa lagu camal fali maayo laa min baabi alcaqaa'idna in la rumeeyo ma aha hadduu xadiidku daciif yahay wala min baabi camali saalixna in loo soo deliishado ma aha maxaa yeelay xadiidka hadduuba daciif noqdo oo wax daciifnimadaa kor oga qaada la waayo daciifnimadaa wax kor oga qaada haddii la waayo khalas weeyaan oo maxaa daciifnimada kor oga qaadi kara aayad qur'aan oo kabaysa ma leh axaadiid kaloo saxiixa oo kabaya ma leh xadiidka daciif buu noqonaya lagu camal fali maayo amaa qowlka ay culimadu yihaahdaan axaadiid daciifa yustadlu fi fadaa'il اlacmaal ma aha sida ay arintaa u oranayaan arrintaas siday u oranayaan ma aha xaafid ibn xajar raxmat ullahi tacaala caleyh su-aashaa la weydiiyey jawaab dhan ayuu ka bixiyey waafi ah wagayri dalik sheekh naasir wuu soo noqliya raxmat ullahi tacaala caleyh fi silsila markuu arrintaa ka waramaya silsilada ayuu kusoo noqliyaa saxiix jaamic sagiirka muqadamadiisu kusoo noqliyaa wagayri dalik culimadu waxay ka yihaahdeen imaam alcalaa'i sidaasi leeg waa ka waramaa wagayrihim axaadiidta daciifka ah yustadlu fi fadaa'il alacmaal ma aha maxaa yeeley imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala caleyh oo ka mid ahaa imadii hore ahlulxadiidka ayaa arrintaa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay xadiidka daciifka ah in nebiga loo nisbeeya waxay noqonaysaa qof ku dhaca ayaad noqonaysaa nahyigii nebiga calayh salaatu wasalaam uu nooga warramay ee ahaa yani nebigu yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadhu min annaar qofkii aniga igu been abuurta booskuu naarta ka geli lahaa u diyaar garoobo lafdigii kale fi saxiix muslim wuxuu oranaya falyalij innaar habaar weeyaan naarta ha galo marka in yarood nebiga ku been abuurta salawaatu اllah wasalaamu caleyh ayaa heerkaa ku gaarsiinaysa marka qofka inuu iska ilaaliyo weeyaan xadiidka daciifka eed ogtahay inuu daciif yahay unan ka sugnayn nebiga calayh salaatu wasalaam aad nebiga u tiirisaa macnaheedu taasuu noqonaya sida imaam albayhaqi oranaya raxmat ullahi tacaala caleyh fahuwa daciifu hadduu xasankii hoos oga dhacay fahuwa daciifu weeyaan wa huwa daciifkiina aqsaaman qaybo weeyaan kahur tiro badan wamaa udiifa lilnabiyi lmarfuucu
وما لتابع هو المقطوع وما أضيف وحي لو إضافيه للنبي نبي الله إضافيه هو المرفوع ويان الدلة يراهضه مثلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بمعنى وامحي النبي قال له رفعية صلوات الله وسلامه عليه النبي قال له رفعية مرفوع معناها رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدي أينو نراهنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ومرفوع حديث كاسي أي رفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن أرفع عني رسولك صلوات الله وسلامه عليه وما لتابع marka wixii nabiga la sheegay salawaatu allah salaamu alayhi haduu marfuuc yahay wama li tabi'in wixii taabici xaqi lagu istaajiyana huwa al-maqtuu' weeyaan waxa fiicnay li tartiib hadii laga waramayo hadii nabiga la soo sheegay saxaabiga in la sheego taabiciga la sheego saasa haboonayd laakiin gadaal buu inooga keeni doonaa saxaabiga gadaal buu inooga keeni doonaa inuu yahay mawquuf isagu wama li tabi'in وحي تابعي حقي لغو استاجيانا هو المقطوع ويان ابن شهاب الزهري بايري سعيد بن المسيب بايري سعيد بن جبير بايري قتادة بن الدعام السدوسي بايري علقم بايري إبراهيم النخعي بايري أسود بن يزيد بايري انت سيود أذيو رقا تابعين تا وركوذي وحي النقون ايام مقطوع معناه ذو ما حيوال لقوي حقي لقوي إنو سيسو عضو أيا لقوي saxaabigana maxaa la dhihi doonaa waa mawquuf macnaha mawquuf waa maxay waa la istaajiye maxaa laga istaajiye hal darajo kor u sii bixi laaba laga istaajiye saxaabigi weeyaan in rasuulka la sheega ka dhinayd mawquuf way marka halkaas la istaajiye macnuhu sidaas weeyaan marka sidaa darteeda haduu yahay mawquuf iyo haduu yahay maqtuu' labaduba xadiis ma حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان مرفوعا أما قول بون نقون كرا أما فعل بون نقون كرا أما أمر بون نقون كرا النبي حقي صلوات الله والسلام عليه أما إقرارك النبي بون نقون كرا صلوات الله والسلام عليه وحن كلا أثر باللو يقانا أثر أي لو يقانا إن كستو خلاف كتاقي عند العلماء تقسيم النوع عاسة وما أضيف وحي الله إضافية للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع ويان وما لتابع وحي قف تابعه لو حقيسه لو اضافينا او لسق لو استاجينا هو المقطوع ويا على محمد خير نبي ارسلا وذي من اقسام الحديث عده وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده
إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت